howlo shaqo oo loo joogay degmada Quljeed kadib wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland ahna murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiye mudane Maxamuud Xasan Saacad Saajin oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka xulgeeno barasaabada gobolada Awdal Gabiley iyo Hawd agaasimayaal maarayaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland gudoomiye ku-xigeenka hay'adda ka hortagga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka iyo madax kale ayaa soo gaaray degmada Boon ee gobolka Salel bulshada ayaana si ballaaran u soo dhaweeyay wafdiga waxaanay socdaalo kala duwan ku mareen wadooyinka magaalada qaarkood kadib waxay khudbado kala duwan ka jeediyeen dugsiga degmada Boon wafdiga sharafta leh oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda ganacsiga isla markaana musharaxa waxay idin sheegayaa رجل هذا ما تيجي معش بدنا حسبنا كسر ثانا مقصما وحسين كسر هي وحال هرب شقيستين وحي لي لا قبل كان يدل ايه هرب شقيستين ووقتي غير بون waan idin salaamaynaa si fiican baad waftiga u soo dhaweyseen waa sidii la iniga baahnaa waa sidii loo bartay anigu waanigii nii sheego reer boon baan ahay ninkii lacagta ceelka qodanahay iyadoo tuulo aan joogay iyadoo degmaana ilaahay gaarsiiyay uu mahadsan yahay waxaan inii wadnaa xisbigii waddanka ee madaxweyne ku-xigeenku ka tirsanaa meel saajinun ma dooranayno jagada madaxweyne ku-xigeenka iyaan xajisanaynaa in laynaga qaato ma doonayno ina taa ku ridaan baan doonaynaa taasaan u soconnaa nuxurkana madaxdaa sheegi waan idin salaamayaa marka xaqiiqada laga hadlo ee kaftanka lagu daro shalay waxa madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliix ilaa deemaanta isagaaba jooga laakiin musharrixii kale wuxuu noqday nin reer boora saajin buu noqday inuu wada garanayno hashi afartan naas lahaydaynu wada maalaynay ee shalay libaaxlay daaqaysay inba xagga biilalay u wareegtay maanta ilaa abase madaxweynihii ugu horreeyay kalaaskayagii daayirayaal kaayin buu noqday oo nala kalaas ahaa naka maantana isagaa musharaxa maantana isagaa musharax u ah madaxweyne ku-xigeenka waxa aan ka codsanaynaa dadka reer Boon iyo nawaaxigeega qof kastii yar iyo weyn in loo kala hadhin ayaan niga codsanaynaa shacabka inta leeg ee maanta in soo dhaweeyay waxay niga sugayaan waad garanaysaan idiguna waxaad uga baahan tihiin way yaqaanaan maadaama is ogeyn cayna maaha baa la dhaamaana maaha maadaama la is og yahay wixii la isku qabanayay hal la kala faa'iideysto boqolkiiba boqol ma kicinay ساسن اسكوغنا ولد سلام يحقلون وقعنا كاني مدن وزير waxay ku taagan yihiin ilaa saakay taagnaa ilaa xal qorshaha way socdaan horta saajino sadka waa subag صوتك ودونيسنا waa sax waa sawsada ma Allahu akbar boonul mahayna selel oo dhan way sare ku sare joogtaa meel ka saate ku soo dhawaada gobolkii Salel ku soo dhawaada degmadii Boon ku soo dhawaada magaalada Boon oo ah mishiinka magaalada Boon ma wareejiya ee siyaasadeeda wax ka bedela ee aqoonteeda wax ka bedela ee hogaamiya dhaqdhaqaaqa gobolka Awdal shacabkana waxa leeyahay gobolka Salel saad u hogaamisa siyaasadda Boorama siyaasadda gobolka Salel loo hogaamiya insha Allah bismillaah kariim ku wax ka bedelan noqdo kulmiye horti reer Boon kulmiye horti ma ay lahayn xafiis maamul ما يدلهين قاري مامول ما يدلهين قاري بليس ما يدلهين قاري حشيش ما يدلهين سلك انت ما انت كل مية يدسيش وحا يدي كم قناع ان شاء الله بسم الله الكريم وحرجينا الى سيكر لنا ميكانيات كدولي قاوة ما يسترين لكن وحوى دنانا يام واحد منا وانت ما يسترينا مالين طلابة لقاضية طلابة لقاضية بيتهين الكوضة الصعونة wadadii ka imanaysa Jabuuti soo marasay degmadan Boon wadadaasi waa gabagabo waxaad had iyo jeer meelaha ka maqashaan warar aan sugnayn laakiin waa waxaan cid la wadaagana wadadaasina dhawaan way bilaabaysaa isagu dhaqsaha badan leh wayna bilaabantayba qaybihii ugu horeeyay qaybaha labaadna wax ka bilaabi doonaan Boon bay ka bilaabi doonaan haddii la yiraahdo isagu dhaqsaha badan leh sanadkan intuuna dhamaanay haddii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa
inaad laamayda soo mari doontaad aragtaan insha allahu tacaala magaalo waxaa horumariyaa waa waddo maanta ilaa kowda mayna ma taagnaateen hadday waddadaasi dhisan tahay waxaan rajaynayaa jaamacaddiinna caafimaadkiinna degmada guud ahaan baahiyaheega kala duwan waxay muuqan doonaan oo laga shaqayn doonaa markay waddadaasi la dhiso dadku waxay dhahdaan ama reer galbeedku waxay ku maahmaahaan haddaad doonayso inaad meel horumariso waddaa la dhisaa waddadaasi nolol kuma horrayso qofka halkan loo caafimaad ahaan loogu caal waaye la doonayo in loo gudbiyo boorama waan garan karnaa wakhtiguu sii qaadanayo waan gadan karnaa in mararka qaarkood dhibaato una la gaadhin baa muxuu ahaa isbitaalkii loo gudbiyey halkan waxaa socdaa wafdi uu hogaaminayo murashaxu waa laba goor oo uu nasiib badan yahay halkanna uu ku dhashay elementarygii buu kaga baxay quljeedna scholarship bay siisay deeq waxbarasho deeqdaa waxbarashada oo ay maanta brofeser xoosh iyo caateeye ku weheliyaan oo 4 ku ahaa muuse nuur 5 oo ku ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland daahir rayaale kaahin boon madaxweyne ku xigeen ka ilaalisa quljeedna madaxweyne soo saartay madaxweyne ku xigeenka hadda joogaana waa reer boon madaxweyne ku xigeenka soo socdaana waa reer boon siyaasadii boon baa hogaaminaysa maanta soo maaha inaynu gacanteedna ku soo saarno oo aynu adkaysanno soo ballan maaha codkeenna soo saajir maaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiir ku xigeenkii wasaaradda hawlaha guud baa markii boonan joognay yidhi saajin waanu dhalay oo abti ahaan waanu garab taagannaho waan dooranaynaa ninka la dhalay maxaad u malaynaysaa isagana waan garab taagannaha annaguna marka hore reer boonow salaamu calaykum waxaan idiin wadnaa wanaag iyo horumar iyo khayr baan idiin wadnaa waxaan idiin wadnaa maanta oo bilow noo noqonaysa murashaxeenna xisbiga kulmiye oo aynu garab istaagno soo maaha maalin dhowbay yaasiin iyo guddigu ii yimaadeen dabadeedna waxay yidhaahdeen waxaan raadinaynaa inaannu ceel biyo ah aannu soo kordhinno waxaan idiin sheegayaa inaad nasiib badan tihiin dabadeed qoladii ceelasha een wasaaradda ahayn hay-addii hayse baan la hadalnay iyagoo fadhiya war bal ka warrama baan nidhi ceelka boon way naga go'antao ceelka waan qodaynaa bay yidhaahdeen sow insha allahu maaha kaa waad haysaan waa riig weeyaan riig baad helaysaan wanaagsan baad helaysaan weliba iskuul ayaa muddo dheer laga dalbanayey degmada la yidhaahda gargoorrey isna waan wadnaa waanan geynaynaa isagana waan dhagax dhigaynaa walaalayaal wixii la idin odhanaya waa la idin anigu wax idin weydiisan maayo ibnalbeled baan ahay waxa weeyaan waxaan u yar sheegayaa ma og tahay barasaab xaddii waa runtii aniga iyo cumar caateeye iyo maxamed roble xoosh iyo ma og tahay nuur muuse diir iyo alla yarxamo iskolarship bayna siiyeen quljeed bay nagu siiyeen laakiin se annaguna iminka waxaan ballan qaadaynaa jaamacad baa la dhisay iskolarship baan siinaynaa walaalayaal waxyaabo badan baa jira dhibaatooyin badan baa jira oo wax ka qabad u baahan waxaa weeye intii karaanka iyaga ah waannu ku dadaalaynaa saaka xalay waxaa soo galay gaadhigii booliiska iyo xalay soo galay ee degmada boon waxa weeye wuu idiin sheegay wasiirkiio maalmaha boon ka shaqaynaynay boon maadaama dadka boona aad u ballaaranayo in biyaha ceelkana loogu kordhiyo taasina waxaa weeye waa guul kaloo timiday
iskuulkii gargoorray ee muddadan daba joognayna wuu bislaaday sidaa uu sheegayo waxyaabihii kale qaban karana waannu qabanaynaa idinkana waxaan rabnaa idiin sheegay meelna idinka og aad iyo aad baad u mahadsantihiin ugu dambeyn wafdigani uu hogaaminayay mudane saajin ayaa waxay guddoonsiiyeen maamulka degmada boon iyo taliyaha ciidanka gaadiid ay ugu tala galeen inay isticmaalaan ciidanku gaadhi ma lahayn booliisku adeegsado waxa weeyaan gaadhigani xal u yimiday waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saqadii oo markaan weydiisanay degdeg u soo diray janaral waxa weeyaan meeshani waa buuraley way dhagax badan tahay waxaan kaa rajaynayaa gaadhi kani ka cusub oo qabaala in boon loo keeno boon waxa weeyaan xagga xalimaana ka xigta xagga abbasaa ka xigta xagga biilale baa ka xigta xagga libaxle baa ka xigta dhinac kastababa waa degaan intana waxaa ka dhici kara wax waana buuraley gaadhi adagoo qabaal ah kanna waxaan u sii qaadanaynaa waanad ku mahadsan tahay kumeelgaadh aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay jenaraal idinkuna waxaa weeyaan ama booliiskii ilaashada intaan ku leehay iska dhaafo idinku ilaashada guddoomiyaha gobolka salal yaan ku wareejinayaa gaadhigaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim wuu mahadsan yahay wasiirka wasaaradda ganacsiga ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeenka insha allah soo socda wuxuu nagu wareejiyey gaadhigu soo wakiishay ama u soo dhiibay jananka ciidanka bileysku mar heer gobol ahaan annaguna waanu ku sii wareejinay degmadii boon intaa uu sheegana insha allah waan la qabnaa waanu keenaynaa gaadhi labaad ku labaad buu noqon doonaa insha allah bismillahi kariim waxaanu leedahay wasiir deeqdaa aad nooga keentay jananka aad baanu ugu baahnay waayo gaadhigii degmada een watay iminka boorem iga yaallaa oo iga jajabay waxa iga jajabayna waa 15 tuulo ee degmadu hoos timaado adeegeedii maanta waan iniga mahad celinaynaa inaad degmadu u keenteen maadaama keenteen tani waa tii u horeysay inta dambena way imani kol haddii degmoon oo saldhigeedii loo keenay boolis intaasaaba annagana deeqda warbaahinta Cusqi TV degmada Boon ee gobolka Salem.